السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلام ونعكسن أصحابي ملك الصوت دقة ورسان كسر هذا برنامج كنا قلب نمو ما توا 4 تاريخ ذنوا كودا بشا أكتوبر سنة كلا بكون يشان يلبات. هذا برنامج كقلب نمو وحندي كوجسو قد بين دورا وركي جوا ويناء سوكردي تاني إنتينو كلام مقنعي. قلب بدا أنو برنامج كيدو كوجا هيدا وحكبده. حماس أو ورر هرور على هلاي أو كسابسن هندسيه نبض ترام طلو حماس ما أقولاتي مسوي ديدي دونتا هذا بوركي وقدم بيا حماس أيان إدين هيا وحسيو كلي أنو برنامج كيدي كوجسو قد بين دونالد ترام أو صحيح هاي أرين ليابله هذا بحيث هاي أريتاس أي ورباهيتها جارهان كو الدنيا عربتا إسلام كو أي حلقان آد وحليان iyana warbixin xiiso leh oo ku saabsan wixii uu saxiixay Trump ayaan barnaamijkeedii kugu haya waxa soo kale barnaamijkaadii kugu soo gudbin doona wararkii ugu waaweynaa ee ka soo kordhay doomihii ku sii jeeday Gaza xaalkoodu halka uu barayo iyo sidoo kale qaybta dambe shirka madaxda Yurub ee Copenhagen ka socda waxa hareeyay cabsida ay Ruushka Yurub ka qabto qodobadaas ayaynu barnaamijkeena galabnimo ku faahfaahinayna inta aan ku jirnana wixii warar ee soo kordha waan idin la socodsiin doonaa Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxa kamid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. Qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. حوالدن وأونلاين إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهلي كران إنترنت فايبر أو حواري سوية 20 ميجا بايتس بير سكن أين للسعودان رسيفر أي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة أو كهذا البلاجة dhammaan bulshada waxaa la socodsiinaya gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka Baker Street ee bartamaha magaalada London halka waxa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay kamid yihiin kuwa maqaarka kuwa carruurta kuwa haweenka iyo cudurrada guud dhaqaatiirta halka ka howlgashay howladaynadu waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan ogeysiis muhiim ah waxa lagu wargelinayaa dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya in la furay xarun ay ku midaysan yihiin injineero Soomaaliyeed oo dhanka dhismaha waxaana lagu magacaabaa xaruntaas Vanguard Solutions waxay ka caawinayaan hindisaha iyo naqshadaynta dhismooyinka kala duwan sida daaraha dhaadheer iyo kuwa gaagaaban kaabayaasha culus ee dhaqaalaha sida wadooyinka buundooyinka eraboorada iyo dekadaha iyadoo ay ku adeegayaan injineero khubaro oo ka soo shaqeeyay dalka dibadiisa sida wadamada midowga Yurub iyo Ingiriiska iyo qaar ka mid ah dalalka bariga dhexe waana khubaro ka diiwaan gashan macadyada qabiirada injineerada ee dalka UK sida macadka la yiraahdo Institution of Civil Engineers oo marka la soo gaabiyo loo yaqaano ICE kuwaas oo ka gaaray heerka aqoontooda C engineering iyo waliba dib u dhiska iyo dib u dayactirka dhismooyinkii ku burburay dagaaladii sokeeye waxay sidoo kale ku ballan qaadayaan inay ka shaqeyn doonaan adeegyadaasi fadlan la xiriir telefoonada iyo emailada shaashada ku qoran si aad u hesho injineeradan takhasuska u leh dhismaha kala duwan kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena galabnimo haddaba barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa war goordhow soo dhacay oo warbaahinta carabtu ay siyaabo kala duwan u falanqaynayaan ninkii Trump ahaa ayaa wuxuu yiri waxaan saxiixayaa qodob cajiib ah saxiixayaa maanta muxuu yahay qodobkaas qadar ma la taaban karo haye ciddi taabata waxay ka dhigan tahay amniga Mareykanka inay dhibaato u geysato qadar laba taaban karo martaba laba weerari karo ciddi taabata wixii ku dhaca anaa ka mas'uul qodob ahaan saxiixa nimanka saaxiibada waaye carabtan yaa laga taaban maalo horbarkood tagay carabta soo tuug balaayiin billions dollar ka soo aruursaday
qatar diyaarada ku siinayna sacuudiga maalgashiya sameynayna imaaraadku annaguna intaasaan bixinayna kana soo aruursaday marka hata ninkan maalin hore wixii yahuuddu ay ku samaysay qatar carabtii oo dhan waa qaylisay cabaadkoodii aan baxay taraamo sidee wax u jiraan annagu maarta ama sidee rabtaa ninkaan marka si uu u dejiyo nimankii qadariyiinta ahaa wuxuu ku yidhi dhegaysta qodob cusubaa saxiixaaba maxaa saxiixaysaa wuxuu saxiixayaa qatar inaan la taaban karin markaasaa waxay warbaahintiisay ugu mahadsanayaan waxa kan ninkan wuxuu iska samaynayo waxaa leeyahay carabtan intuu arkay meel ku soo ogaaday ayuu mar walba wuxuu rabo u sheegaa filimkuu rabo u daaraan leey haddaba marka aan idin tusoo tafaasiisha sheekadan cajiibka ah ay soo korortay telefishinka aljaziira ayaa wuxuu leeyahay trump wuxuu yidhi waxaan saxiixay amar kaasoo ah weerar kasta oo lagu qaado qatar inuu khatar amni ku yahay maraykanka haddaba marka tafaasiisha sheekadan way sii socotay waxaa leeyahay aqalka cad ee waddanka maraykanka ayaa wuxuu sheegay madaxweynaha maraykanka Donald Trump inuu saxiixay amar madaxweyne kaasoo markaa uu ku sheegay weerar kasta oo dhulka qatar lagu qaado iyo qarannimadeedu inay khatar amni ku yihiin maraykanka aqalka cad ee maraykanka ayaa wuxuu sheegay in madaxweynuhu uu saxiix qalinka ku duugay in markaa arinkaasu uu dhaqan galay marka uu madaxweynuhu saxiixay haddaba maraykanku waxay sheegeen inay maslaxadooda iyo maslaxadda qatar ay isku mid tahay oo ay isku si u difaacayaan qatar marka hadda waa la seexinaya maalin horena Netanyahu markuu tagay waxaa la yidhi kaale cudurdaar siin nimankaan ma taqaanin adiga annagaa wax naga dhuuqdaa yahuuddu waxay wax ka qaadataa maraykanka hub ha dhihin dhaqaalaha dhihin maraykankaasi nimankan carabta ah laakiin ninkan isagaa maaratay dhuuqa wuxuudu dhuuqaa marka wuxuu yidhi nimankan maadaama jugtii aan la gaftay oo nimankii lagu dili lahaa hadda marka nimankan waa in niyadda loo dhisaa marka nimankii hawshaasee marka waa la seexaa lagu leeyahay ninka wax weligeed dhacay maahana lagu leeyahay aqalka cadkeena warqado uu leeyahay inta soo dhiga qalinkaa ku duugaya waddanka qatar lama taaban karo oo qalinka ku seexay carabtii wuxuu leeyahay muujeediin waa seexay markaas wuxuu leeyahay weeraray qatar shalay qatar waxa weeraray yahuudda inay soo weeraraysana maraykanku waa ogaan wuu ka celin karay wixii markay dhicisoobeen oo wixii lala gafay nimankii ilaahay tooda aan keenin xamaas ayaa hadda waxaa leeyahay saasaa la leeyahay marka sheekadan waxay noqotay sheeko la yaab leh oo aad loogu maadsanayo ayay noqotay marka waa war cajiiba adinkuna fakari aragti waxaad arrintan ka qabtaan bal soo qora xamaas waxaan ogeyn in loo dhiibay hindisihii 20 qodob ka koobnaa ee maraykanka ay soo saareen nabadda waxaa shir kula jiray barnaamijkii saakay aan idinkugu soo gudbayay qatar iyo basar iyo turki nimanka in wixii laga dhaadhiciyo hadda waxaa la leeyahay nimankii go-aankoodii waana lagu dhawaaqin maahane waa la helay macnaha xamaas si rasmi aysan go-aanku ugu dhawaaqin maahane waxa ay diidan tahay waa la helay iyo waxay ogoshahay haddaba marka aan idin tuso goor dhow jiradda la yiraahdo ra'yul yawm ayaa waxay qortay warbixin ay leedahay mas-uul ka tirsan xamaas ayaa wuxuu u sheegay warbaahinta in la filayo xamaas inay diido tallaabada ku saabsan Trump qorshihiisa ee la soo bandhigay oo arrimaha Gaza ku saabsan waxaana la sheegay inay ku jiraan qodobo u adeegaya Israa'iil sida ay tiri xamaas haddaba warbixinadii ugu dambeeyay waxaa la sheegayaa mas-uul ka tirsan xamaas ayaa u sheegay idaacadda BBC-da in xarakada laga filayo inay qorshahan diido oo ay laad ku dhufato waxaana la sheegay madaxweyne Donald Trump in markaa uu soo gudbiyay sida ay yiraahdeen wax maaratay dan weyn ay ugu jirto sida ay sheegeen Donald Trump in maaratay Israa'iil ay dan weyn ugu jirto haddaba wararkii ugu dambeeyay dhanka kale waxay leeyihiin waxay sheegeen in qodobadan
ay markaasi meel iska dhigeen oo ay iska dhigatireen masaalixda shacabka falastiiniyiinta. haddaba waxaa la leeyahay laba qodob ayay xamaas aad u diidan tahay. qodobka koowaad oo ah nascu silaax in hubka ay dhigto, iyo qodobka labaad oo ah in ciidamo ajnabi ah la geeyo meesha iyo maamul ajnabi ah. waxaasu marnaba ma yeelanay leeyahay. waay marka arrintan waa arrin marka waa xasaasi ogaada. inkastoo go-aankii rasmiga ah aanu ahayn oo xamaas, laakiin mas-uul xamaas ka tirsanaa BBC da wuxuu ku leeyahay waxaa laga yaabaa inaan diidno arrintan, ma nagu soconayso, wayna diidi doonaan xamaas uu leeyahay. hadda weli waxaa socda, laakiin tashigii turki ha dhihin, masar ha dhihin, wixii oo dhan waxay leeyihiin waxa kan waxbaa laga bedeli karaa, ha diidinina, wax sameeya si dagaalkan u joogsado, dhibaatadan u joogsato ay ku hayaan. marka laakiin nimankan xamaas waxay leeyihiin laba qodob suuragal ma ah. ajnabi meesha ha maamulo ee maaragtay ciidan ajnabiga ha la geeyo yeeli mayno. midda kale hubkiina dhiga ee halkaa ku lugeeya, waxaas waxaan akhrisanayna maana dheh. raggeennii mujaahidiinta maxay ku baaba'een, maxay ku dhinteen, maxaanu u dagaalanay, dadkeennu u baaba'ay. waxaas wax aqliga gala maana dheh. waana la layn karaa, maahane wax kale maaha. laakiin marka waxaa leeyahay inkastoo uusan go-aankii rasmiga ahayn, laakiin waxa muuqda waa arrinkaasaa leeyahay inay nimankan maaragtay diidi doonaan, ma ogolaan doono leeyihin. haddaba marka qodobkaasi halkaas kaga gudbaynaa. qodobka saddexaad ee barnaamijkeenna waxaynu kaga hadlaynaa doomihii kusii jeeday Gaza xaalkoodu halkuu mara. haddaba saaki meelay noo joogtay in talyaanigii iyo wixii ay ka hareen, kadibna ay keligood soo galeen. hadda keligooda kusii socda meesha, laakiin waxaa u soo dhowaaday maraakiibtii Israa'iil. waxaa sidoo kale loo soo diray diyaarado drona, tashwiish ayaa lagu furay, isgaarsiintii ayaa laga jaray. xoogaa meesha waxaa ka taaganaa leeyahay buuq fara badan. marka inta badan Israa'iiliyiintu waxay weeraraan doomaha habeenkii ay ku degaan. maalinkii marka waxaa leeyahay nimanka doomaha saaran wariyaashu waxay leeyihiin maanta saasaana lagu sameeyay, laakiin caawan filaynaa markay mugdi noqoto inay nagu soo daataan waxay samayn doonaan. marka xaalka iyaduna doomihii halkaasuu maraya. qadar xayeysiisa kadib qaybaha dambe barnaamijka galabnimo ayaanu gudbaynaa iyo wararkii ugu waaweynaa. waxaan idiin soo gudbin doonaa Yurub oo maanta ku shiraysa Copenhagen. waxaa kulankooda hareeyay cabsida ay ka qabaan Ruushka. متعشى برشاد القرآن الكريم يعلمت الشريعة هبع عصرية أونلاين أديكو جوجا كوريجا أما قوبت هذا الشقة مركز دار التقوى وحكوك بري القرآن كهبع عصرية أونلاين ما دون كتكبر كرتو حكم ذا قرآن الكريم إكادة لغة عربية إيو علومت الشريعة استوان قلت وايد سعوطة فضلا هروكات وهي فاهينا كالحريد من برض الشاشة كان مغضى هموكاد دوكسيجا مركز دار التقوى. sharikadda Imara Luxury Homes waa sharikad guryaha casriga ka dhista magaalada Nairobi ee dalka Kenya. haddana waxa ay ka wadaa dhismaha loo yaqaan The View xaafadda Backlands, jidka 6th Avenue, City Park. dhismaha The View waxa uu leeyahay adeeg kasta oo asaasi ah, waxaana uu ka kooban yahay sida 2 qol, 3 qol, 4 qol iyo waliba qolkii shaqaalaha iyo 4 qol oo 2 dabaq oo isdul saaran. waa nooca loo yaqaan duplex. haddaba imika waxa socda barnaamijka sharikadu ay u bixisay 90 days promotional, kaasoo la magac baxay hoyga waa muhiim hanti yeelo. kala xidhiir telefoonada kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan. ku soo dhawaada barnaamijkeena galabnimo. waxaynu maraynaa qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka aynu ku soo gudbinaynay galabta. haddaba barnaamijka qaybtan waxaynu ku faahfaahinaynaa Yurub ayaa kulan waxay ku leeyihiin caasimadda wadanka Denmark ee Copenhagen. dhawaanahan Denmark waxay ka qeylinaysay diyaarado drone oo sidaa u dul maraya maaragtay Poland, waa soo maaragtay Estonia, Denmark, meeshaas oo dhan. nimankii marka waxay leeyihiin Ruushku uu tijaabinaya alqaaratu alcajuus, waa la tijaabinaya qaaradii duqda ahayd meelba meel Ruushku ka maraya.
marka waxay leeyihiin aan isku tashano gantaalo aan samaysano wixii aan haysanay aan casriyeyno ruush waa kan maraykan la iskuma hadlayn karo ninkan Trump la leeyahay wuxuu rabo iska sameeyaa ninkan ruushkana uu iska kaana juqjuqaynaya marka iska dhicilay kulakoodii dad marka waxa hareeyaa lagu leeyahay cabsida ay ruushka ka qabaan ruushku imtixaansana haddaba marka aan tuso wararkii ugu dambeeyay shir madaxeedka Yurub ee Copenhagen ka socda ayaa waxaa la sheegay inay Yurub kaga arisanayso sidii ay uga hortagi lahayd isku dayada ruushka ee uu ku doonayo inuu khalalaase kaga abuuro Yurub macnaha in halka ay dhibaatooyin iyo mushkilad sidii ay ruushka uga hortagi lahaayeen ayay maartay diiradda saarayaan nimankii marka waa qaybtii Denmark ay tiri Sweden waxaan ka doonanaynaa gantaalaha difaaca lagula dagaalamo diyaaradaha droneska oo nafta loo keenay marka beel walba buuqaas ka tahay ninkii ruushka sidii isaga ay wax u soo wadeen oo wax u maleegayeen Yurub dhanka kale uga keenay diyaaradaha droonka ku harqinaya yaa iskala yaqaan wax la yaqaan ma toodon waa kaas adiga iska dhig nimankii marka waxay leeyahay ninkan soo noo juqjuqaynay ayna iska dhicin haddaba waa arki doonaa wixii warar ka soo kordha fakari aragtiyadii kore waxaad haysaan noogu soo gudbiya barnaamijka galabnimo waa naga taa la gareeyo shir gareeyo taan markala kulmaynana nabadgelyo